kusoo dhawaada Abna Official. Insha Allah halkan waxaan ugu bilaaban doonaa taxanaha wax loo yaqaan e-commerce ganacsiga digitalka ayaan u bilaaban doonaa duulayaraad insha Allah. Wuxuu noqon doonaa taxan aad u badan. Waa maxay e-commerce ka bilaabanaya ilaa yani qaabka aad ugu shaqeysan kartid qaab digital ahaan aad ugu shaqeysan kartid duulayaraad. Waxaan sameyn doonaa hal abuur ganacsi oo tiro badan. insha Allah waxaan rajeynayaa inay noqon doonto fikrado qurux badan. ganacsiga electronic taariikh ahaan wuxuu bilowday 1979 wuxuu aad u horumaray sagaashameeyadii markii ay soo ifbaxeen Amazon iyo eBay ay aad u horumareen markaas ayuu ganacsiga e-commerce markaas soo ifbaxay ayuu noqday mid caan ah. waagi hore 780 qaab xawaalad ahaan lacag hebel iyo dukumeentiyada qaab la iskugu dirayo dowladaha dukumeentiyada iskugu dirayaan iyo electronic transfer funds qaab lacag la iskugu dirayo ay ahayd laakiin as ganacsi oo kale meesan ahayn. laakiin sagaashameeyadii oo kale eBay Amazon markay soo ifbaxeen ayay noqotay yani wax shaacsan. marka e-commerce markaan leenahay ganacsiga electronic markaan leenahay waxaan kala jeednaa waa iibsiga iyo iibinta badeecadaha iyo adeegyada ama u gudbinta lacagaha ama xogta qaab shabakad electronic ee ugu horeysa internetka. marka e-commerce asiga wuxuu leeyahay noocyo badan ilaa 5 nooc 4 nooc ay la gaarsiiyaan mararka qaar, laakiin insha Allah waxaan sheegi doonaa shantooduba waa sheegi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. ganacsiga koowaad noocyada ganacsiga electronic midda koowaad waxaa loo yaqaanaa ganacsi ilaa ganacsi kale, macnaha business to business. e-commerce oo qodobka koowaad waxaa loola jeedaa isweydaarsiga electroniga ama online-ka ama digitalka ee badeecadaha adeegyada ama macluumaadka u dhaxeeya ganacsiyada halkii ay ahaan lahaayeen mid u dhaxeysa ganacsi iyo macaamiisha. guud ahaan waxaa loola jeedaa ganacsi ilaa ganacsi waxaa loola jeedaa business to business waxaa loola jeedaa ganacsi u dhaxeeya laba ganacsi. tusaale ahaan kasoo qaad shirkadda Beder iyo shirkadda Discount Computer. Beder waxay iibisa computer iibisa, Discount waxay iibisa computer iibisa. kasoo qaad maanta Beder waxaa loo baahday 100 xabo computer oo model specification qofku socda. marka 100 xabo waxay ka heshay 92 xabo ama 3 xabo ama ka heshay waxaa ka dhinaaday 7 xabo ama ka dhinaaday 7 xabo oo ka dhinaaday waxay u imaaday Discount u imaaday Discount 7 computer ka gadatay saasay 100 u dhameystirtay. waa ganacsi u dhaxeeya business to business, waa laba ganacsi u dhaxeeya laba ganacsi agar Soomaan. marka online ahaan qaabkaas ay noqonaysa e-commerce marka loo ganacsi ka dhaxeeya laba ganacsi online u furan ganacsi kale ayuu ka iibsanayaa. ganacsi macaamiil waa business to customer, waa ganacsi caadi taqaanay. waayo aad maanta tabaxay dukaan jaatid ganacsi u tagtay marka wax ka soo gadatid asaga agtiisa waxa ka tahay macaamiil ka tahay adina asaga muctabarka ganacsada ayuu ka yahay. ganacsiga e-commerce kasoo qaad shay waxa ku aragtay website, waxa ku aragtay Facebook, waxa ku aragtay Instagram, shayga ay ka dalbatay ganacsigaas wuxuu leeyahay adiga ganacsadaha. waa qodobka labaad waxaa loo yaqaanaa business to customer, waa qaybta tafaariiqda ee ganacsiga electronic ee internetka. waa marka ganacsiyada si toos macaamiisha ugu iibiyaan wax soo saarka adeegyada ama macluumaadka ay u baahan yihiin. tusaale ahaan waxa ugu fiican tusaale ugu macquulsan waxay tahay Amazon oo kale. Amazon website Amazon gashay waxa ka dalbatay kasoo qaad product ka dalbatay kasoo qaad sida telefoon ama ka dalbatay telefoon markay ka dalbatay uu lacagta bixisay credit card-kaada
shayga dalbatay gurigaaga lagu keenay waa sidaas. qodobka saddexaad waxaa waaye ganacsiyada electronic u qaybsamo macaamiil ilaa macaamiil. macnaha waa la ganacsi u dhexeeya customer to customer. waa nooc ka mid ah ganacsiga electronic ah ay macaamiisha ay kaga ganacsadaan wax soo saarka, adeegyada iyo macluumaadka midba midka kale qadka online-ka ah. sidee tusaale ahaan kasoo qaad maanta waxaa rabtaa darada waxaa soo gadatay kasoo qaad waxaa soo gadatay qasaalada soo gadatay daradoo kale qasaalada soo gadatay qasaaladii macnaha safara kuu soo baxay. marka safarada uu kuu soo baxay qasaaladii meeshan ugu tagi kartido yani waxaa rabtaa inaad iska iibsato waddanka dhan ka tagaysaa. okay yaa gadaysaa marka ilaan adi macaamiil ahayd shal qofaa kasoo gadatay qofaa macaamiil u ahayd. marka maadaama adiga macaamiil aad tahay waxaa sameynaya qasaaladii aad sawiraysaa. qasaaladii marka aad sawirtid waxaad u bandhigaysaa website-yada online-ka aad ka bandhigaysaa. dabcan macaamiil kale ayaa kaa soo dalbanaya qaab celis ahaan ayaad ugu gadaysaa. magarasoo maahan waa macaamiil waa ganacsi u dhexeeya macaamiil iyo macaamiil kale u dhexeeya. waa nooc saddexaad ee ganacsiga e-commerce. midka shanaad midka afraad wuxuu yahay macaamiil ilaa ganacsi. waa ganacsi u dhexeeya consumer to business. magarasoo maahan waa nooc ka mid ah ganacsiga electronic ay macaamiisha ay uga dhigayaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda qadka tooska ay dhigayaan ee shirkadaha si ay u dalbadaan una iibsadaan. tani waa kasoo horjeedka qaabka ganacsi dhaqameed ee ganacsiga ilaa macaamiilka. macnaha tan waxay lid ku tahay ganacsigii ahaa business to customer ay lid ku tahay. waa garsooma kasoo qaad maanta waxaa samaysay farshaxanaa samaysay adiga qof caadi shaksiyan caadi aad tahay macaamiilka caadi shaksiyan caadi aad tahay farshaxanaa samaysataa artist ahaana noqotay صح كمباني wuxuu kaa soo dalbaday farshaxankaas ayuu kaa iibsaday. waa garsooma ama kasoo qaad idaacada oo shaqeysayo kale warbaahin oo shaqeysaa. yes warbaahin oo shaqeysaa ganacsi adiga waxaa kaa soo codsanaya inaad xayisiin aad u samaysid. magarasoo maahan okay ganacsi shanaad waxay tahay waa ganacsi u dhexeeya ganacsi maamul. ganacsigaas u dhexeeya macnaha business to administration dowladda kale la jeeda. waa garasoo maahan dowladda kale administration kullahi waa dowladdii. waxaa loola jeeda ganacsiga laga sameeyo online-ka ee u dhexeeya shirkadaha iyo maamulada dowladda ama hay-adaha dowladda. qayb badan oo dowladda ka mid ah waxay ku tiirsan yihiin adeegyada electronic-ga ah ama wax soo saarka si uun gaar ahaan markay tahay dukumentiyada sharciga, diiwaanada, amniga bulshada, kalluumeysiga iyo shaqada. waa business to administration ayaa loo yaqaanaa. mid kaloo lixaadaa jiro. midka lixaad waxaa tahay customer to administration ganacsiga u dhexeeya macaamiilka iyo maamulka dowladda. waxaa loola jeeda ganacsi laga sameeyo online-ka ee u dhexeeya macaamiisha shakhsiga iyo maamulka dowladda ama hay-adaha dowladda. dowladda marar dhif ay alaabada ama adeegyada ka iibsadaa muwaadiniinta. insha allah la socono taxanaha e-commerce-ga intaan uu ka badan yahay.